muqdisho hadda 3 sano ayaan dhowahay intaan London ka soo maqnaa adiga badanaana ma bixin yani waan tagi waay mitid wax waa samayn kartaa samee aan ku jiro anigu waxaan ahaa dhalinyarada iska cunugaadi markaa soo kaco dhowr iyo 10 jira dawlad oo jirtaana ka tagay 84 ilaa 83 dhamaadkeedii laakiin hadda marka aan soo laabtay aan waxaan ku fikray markaan liida arkay si u baaba'san tahay bal aan sii bal jasiirana soo fiiray أول جزيرة أبي دحنا دسنان شرتي أيضا نسيت وكلا بابعضي جزيرة هذا واحد هالبلدين يطول ذا يرو ديجان كأ دسنا وولينا اللي تقيها حط السمر كأميد أو واحد محاك بتلك كرتا سو كأنك يفكر عن أتجي أيضا مصيرنا هاي مصير كاس أو intii waddan shishe aan wax ka dhisi lahaa tag geli waddankaa riski badanna aan u qaatay oo riskigaas oo ahayd dadkiioo aan isdhex mari karin oo sheeko qabiil ku jirto dadkiioo cabsi kala qaba dadkiioo baahidii lagu leeyahay baahi darteeda qofkan kale oo qofkan u dilaya markaan waxaan isku dayay inaan ka dhaadhacsiiyo deegaankan inuu naga wada dhaxeeyo naga wada maaragtay na wada anfacayo shaqana lagu abuuri karo oo tahay society wax badan oo hami ah waxaan dadkii iyo amnigeena ka dhaadhiciyay aniguna istusay cid kaama xigto waa dalkaaga waa dadkaaga waa aftaqaana waa la hadlaysaa shaqaalaha meesha ii jooga oo meesha special mission ii jooga waa la training karaa laakiin dadku waxay u baahan yihiin dad kale oo shaqada yaqaano oo la qabta waayo waxayba u haystaan adiga asxaan inay ku sameynayaan markii shaqada oo u dirti waayo 20 sano maamul iyo hospitality iyo kala dambeyn 21 sano ka badan 20 sano ma xisaab halkan kaliya waxaa ka shaqeysa 43 qof ayaga shaqeysa kan ugu yar oo qaato $100 oo qashinka meelaha ka aruuriyo kan ugu badan oo qaato kan ku xiga $500 $600 $700 qaanasiya 45 taas وريا حبني نسير 45 qof hada NGO aan ahay hal maalin aan dabka u shidi lahaa waana busayga kala laaban la waa ka tigi lahaa laakiin aniga 24 hours 7 days a week 52 weeks a year every day oo continuous ah ayaa waxa abuuray qofka basekiisa sida loo shaqeysto income soo galaya uu ku fikiraya caruurtiisa inuu iskuul geeyo caruurtiisa inuu daaweysto noloshooda inuu kafaalo qaado intaas ayaan aniga iyo NGO ku kala bedelnaa shaqo abuuris for long life 43 qof intee ku xiran way badanta ugu yaraan waxa ku xiran 200 iyo xawaa familka ugu yaraa ilaa 5 oo hooyo ku soo xiranta ayeeyo ku soo xiranta abu ku soo xiranta awow ku soo xiran baddaas adaale cid kaama xigto berigan adaale cid kaama xigto waxaad Dubai la aadaysid ama aad la aadaysid Afrikada kale meel kale keenay halka imow shaqo abuur at least aad soo degta xataa ama fasaxa u timaadid dakhliga soo kaleynaysa waa ogtiin travel and tourism lacag badan ay geliyaan wadamada aan joogno hadana anagu sameyn cidina ma sameynayso dadka aqoonta leh oo aan ognahay ayaguna is og dadka ganacsiga oo weligood ba survivor ku ahaa London ama Europe meel kasta joogan ama North America dadka dib isku dhigaya qurbo waan wada aragnay meel kasta aan joognay waxaan anaga iskale waa waxyaalaha aan jecelnahay in aan ku faano the beauty
the naturalka the resource yaa iska leh keena ku dhashaa xagga ama ku soo barbaaray ama og laguma dhegaysanayo is oranin at least uu hal qof maskaxdiisa wax ku abuuro ya ama uu wax ka bedelo hadduu xataa uusan u soo jeedin waa lagu dayanaa marka mudaniyadda waxa la yidhaahdo aan xasuusanaa aan istusnano marka waxbaan ka bedelaynaa Sitting outside of my old home when I was younger and singing something like Wanagi orne nabad barine Maraykan waa laga soo waayay Maraykan waa laga soo waayay Maraykan waa laga soo waayay Wanagi orne nabad barine Maraykan waa laga soo waayay Maraykan waa laga soo waayay Maraykan waa laga soo waayay gabar yar subxaano marashabee la xirato mara qafiifa huwato magacaaga ii sheeg magacaygu waa sharaf xaaji weeyaan aqalada xariirta dhinac baan ka jooga alla yaa u sheega tinta u shanleeya nahooy samsamey salaax nuurey adoo kilkiliyo kalluun badaney adoo xadka jira xasuus badaney saaxiibtaa casha cashaq baad dilay ugu dambaystina aniya geeluba ugu bannaan bixin wanaagiisa yani la leeyahay dhulka baahiya tala farsamaan aqoon baahi uma taalano wax baahi oo yaala midna